ilaahay baa mahad leh oo runtii maanta noo suurtageliyey maanta halkan inaan kulligeen nasiib u yeelanno fursaddan aan dib u fureenno muddo dheer kadib taalooyinkii qaranka oo ahaa astaan iyo taariikhda dalkan uu lahaa runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan qayb ka noqonnay in aan dib u soo celinno xusuustaas iyo maxaan ku raahdaa taalooyinkaas taariikhda noo leh astaantana dalka u ah dal walba wuxuu leeyahay astaan wuxuu leeyahay taariikh iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeye ha yidhaahdaan ama hero ha yidhaahdaan oo dhinac walba ah runtii annagu hiirooyadeenna waa badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinka aan u samaynay kuwa kalena inaan u samayno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada wax badan u geysta oo wanaaga dalkan runtii waxaan aragnaa sababtaan u xuseenno oo aan ugu samaynayn taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray waxaan furnay suu sheegay guddoomiyaha xaawataako sayidka maxamed soomaali ama waxaa loo yidhaha waxaa soomaalida inta badan u taqaano dhagax tuur iyo maxaan yidhahdaa axmed gurey iyo kuwo kale oo aan furi doono insha allah hadduu ilaah yidhaahdo sababtana waxa kale maaha iyagu waxa weeye waa simbol laakiin dad badan oo aad u badan yaa halgankaas ku naf waayey ku xoolo waayey dhibaatooyin iyo xarg u maray waxayna qayb ka ahaayeen oo annaga haddaan maanta aan joogno ay ku soo urureen wax walba iyo halgankii ay ku jireen SYL oo runtii dhammaystirtay xorriyaddii dalka inay dib 1960kii ay isugu keento ayna u midayso waqooyi iyo koonfur labadii qaybood qaybna ingiriisku gumaysanayey qaybna talyaanigu gumaysanayey waxay ka wada shaqaynayeen kulligood waxay ahayd ama halgankaasi ay u soo mareen waxay ahayd xorriyadda dalka in dalka xorriyad uu gaaro xorriyaddaasu maxay tahay marka in dalka uu gumaysi ka xoroobo dalka inuu qabjab ka xoroobo dalka iyo dadku inay quursi ka xoroobaan iyo weliba tan ugu muhiimsan dadku qabyaalad inay ka xoroobaan waxay keentay qaran marka qaranna macnaheedu waxa weeye waa heybad iyo sharaf iyo mansab iyo maamuus qof walboo soomaali ah adduunka laga yaqaana magaciisa meel alla meeshuu tagana ee sharaf iyo soo dhoweyn iyo karaama uu ka helo waxaana lagu gaaraa waddaniyad waxaa lagu gaaraa midnimo yaa lagu gaaraa muddadii aan intaas haysannay waad ogtihiin soomaaliya kaalmaha ee adduunka ka gelaysay iyo meelaha muhiimka ee adduunka uga jirtay iyo qadarinta iyo sharafka iyo karaamada ee adduunka ku lahayd waxaana intaasna gaarsiiyey waxay ahayd qarannimo iyo lagu raadiyo waddaniyad maaha qabiil ma ah maxaa yeelay markii aad qaran raadinayso waa inaad waddani aad tahay oo aad ka hadlayso dalkao dhan kan ku gumaysanaya ama kan raba inuu hoos kuu dhigo kuuma imaanayo haddaad qaran tahay laakiin waa ku hawaysan haddaad qabiil tahay maxaa yeelay gumaysigii halkan imaanayey naftigoodu haddii soomaali qaran ay ahayd ama qaran ay lahaan lahayd maysan imaadeen laakiin waxay ogaayeen soomaali inay qabiil u qaybsan yihiin intaas aan qarannimada aan haysannay qarannimadeenna ay xoog lahayd midnimadeenna ay xoog lahayd dadkeenna waddaniyaddoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii waxaan gaarnay meel annagu aan afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siinno kuwa naga hooseeya kuwa raadinaya inay xorriyaddooda helaan oo aan tababarro u samayno aan dhaqaalo ku siinno si ay xorriyaddooda u helaan kuwa ishaysta oo dagaallada ka dhexeeyana inaan nabad dhex geenno ciidan dhex geenno heshiisna ka dhex samayno intaasna waxaan ku helna waxaa weeye meesha aan ka taagnayn afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka meeshaas wey meeshaan u soconno marka dowladdaani waxay u socotaa intaasay u socotaa waxay ka hadlaysa waxaa weeye in qarannimadii la xoojiyo in lagu dhiso qarannimada waddaniyad lagu dhiso midnimadii la soo celiyo dhallinyarada marka waxaa weeye dhallinyaradii hore idinkama fiicnayn laakiin waa idinka waddanaysanaayeen aan odhan karaa ama maybe waa idinka dhiiranaayeen laakiin idinkama aqoon badnayn waxay fahamsanaayeen sida keliya oo gumaysiga looga adkaan karo inay ahayd formulahaas aan sheegay maantana annagu haddaan nahay dowladdii waa ku dhiirigelinaynaa dhallinyarada cid walbo muwaadin waa ku dhiirigelinaynaa waanu ku faanaynaa taariikhdeennii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay oo inaan adduunka meel fiican kaga jirnay
haddana meeshaan u soconnana ay tahay adduunka inaan meeshii iyo meel ka fiican aan higsanno waxaan ku gaari karnaa isku duubnaasho iyo wadajir iyo midnimo iyo dhallinyaro dhiiran ayaan ku gaari karnaa oo fahamsan waxa keliya dalkan uu ku hormari karo magaceennii iyo sharafkeennii iyo karaamadeennan ku soo celin karno ay tahay dadkii naga fiicnaa oo naga horreeyey shalay oo xorriyaddan keenay inaan uga dayanno wixii wanaagsanaa ay qabteen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu